halkani waa kandaroolka laga soo galo gobolka sanaag waxayna ku taallaa degmada garadiga galbeedka gobolka sanaag waxaana kandaroolka laga furay xarun caafimaad runta caafimaad oo lagu baarayo cudurka adduunka khalkhalka galiyay allaha awoodda weyn haynaga haye coronavirus ama covid-19 waxaana uu kuurgalay telefishinka caalamiga Ariel TV inuu wax ku ogaado habka casriga ah ee loo baarayo dadka uu kala goosho gobolada Somaliland waxaana halka kula kulanay isku duwaha wasaaradda caafimaadka degmada Dr. محمد زعيد إسماعيل توريالي دكتور عبد الرحمن آدن دكتور رحمة ظاهر عيدن كبوليس كدقمة قردق ويسنا دور وين كقاتي حالة عافماد ددك كيمانيا كيمانيا قبلة السوماليلان دك كلنا دخاتيرتو وتشغدو دا ايا ددك جريع سنة معوريا مدى يسارن بصصك اما قادية دكلا دوان هالكودو وقتاقيا كونا صوب باريا وانا دخاتير كرتول الشغدو دا امين كاي قعنتا كوهايان الرحيم halkan waxa ka socota shaqo caafimaad waa kandaroolka degmada garadag anigoo ku hadlaya afka caafimaadka degmada garadag waxaanu halkan ku baadhaynaa dadka ka yimaada burco iyo hargeysa iyo berbera dadkaas oo laga baadhayo xanuunka covid-19 ee adduunka oo dhan saameeyay dhammaan bulshada waxaanu ku wacyigelinaynaa in xanuunka adduunyadu say uga qaylinayso dee waa la arkaa ilaahay haynaga hayo laakiin waxaanu doonaynaa in wixii lagula daali karo lagula daalo dhakhaatiirtii way shaqaynaysaa dadkii waa taa la baadhayaa waa basaskii gobolka u socday ee u kala gooshayey hargeysa burco ilaa cerigaabo waad aragtaan shaqadiina waa socotaa marka waxaanu leenahay dadaal ha la muujiyo wixii lagula daali karo ilaahay waxaanu ka baryaynaa in xanuunka uu naga hayo waxaanu u gudbinaynaa wasaaradda caafimaadka hay'adaha ku shaqada leh in dhammaan hawlahaasi ay socdaan degmada garadagna si xawli ah uga socdaan waayo garadag waxay ku taallaa xuduudka burco la wadaaga gobolka sanaag waa magaalada u koonaysa marka waa kandaroolkii bar caafimaad baa laga furay assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa raxmad daahir yuusuf waxaan ka mid ahay health workerska ka shaqayn doona areadan garadag maxay ahayd waxaan deganahay istabta waxaanu eegaynaa dadka ka imanaya hargeysa burco boorame maadaama uu xanuunkii nala joogo maxay ahayd burco laga helay marka waxaanu gelin hore iyo gelin dambe waan shaqaynaa dee shaqaduna si fiican bay u socotaa waxaan kaloo فرصدين كجا فائدة سنة إن الناس يشوفوا بالشدة وحنو شيء جيا محيه تدك إني فرح الكي بديان إن ماليه اللي جو بدنا دن محيه تي وحنقولها لها بشوين تا سو مال اللي أنا مهار جردك با إن فرح الكي لبديو إن ماليه تدك كو بدنا اللي سقط تجي مهار دي لفلسطين وحين اللي يريو إن تدك جوريه هديسك تشوجان تشوجي كريان إن عندنا يوجد شيء إن تدك مالها بوق تدك سوقي منايان مركا ما xanuunkani gaalo iyo muslim midna ma yaqaano waa masiibo ilaahay adduunka ku soo rogay gaalo iyo muslim buu ku dhacayaa marka dadka aaminsan gaalada ku dhaca waxaan u sheegaynaa inuu gaalo iyo muslim xanuunku kala garanaynin marka insha bismillaahir rahmaanir rahiim goobtan aan ku suganahay waa ilinka ama albaabka laga soo galo gobolka sanaag waana tirsi degmada garadag halkan ayaan hawshan u joognaa ama shaqada u joognaa waxay tahay inaanu hubino xaaladooda caafimaad gaar ahaan ka baarno calaamadaha uu leeyahay xanuunkan dunida inta badan khalkhalka faraha badan galiyay covid-19 sidoo kale eegno dadka gobolka galaya inay dhammaan xaaladooda caafimaad ay sugan tahay ayaanu halkan u raan maxamed raan telefishinka caalamiga Ariel TV degmada garadag